dunidu waxa ay maanta ku howlan tahay raadinta energy nadiif ah oo la cusboonaysiin karo. Waxyaabaha ugu badan ee bani'aadamka maanta si daran uu u maalgashanayo waa raadinta enerjigani. Dhammaan aqoon-yahanada adduunkana waxa ay tartan xooggan ugu jiraan raadinta enerjigani alternative-ka. Maanta qofkii hela formul saameyn leh oo energy alternative ah laga dhalin karo taariikhda mustaqbalka ee dunida, qof si aad ah loo xuso ayuu qofkaa noqonayaa. Sidoo kale waddankii hadda u jihaysta raadinta enerjigani la cusboonaysiin karo, hubaal waxaa ah in waddanka dunida oo dhan dhanka enerjiga in hormuud uu ka noqonayo. Dagaalkii Ruushka iyo Ukraine iyo cunaqabatayntii Ruushka, waddamada reer galbeedka iyo Maraykanka waxa uu dagaalkani uu ku qasbay in ay laba jibaaraan raadinta energy nadiif ah oo alternative noqda. Horumarka bani'aadamka ee dhanka tiknoolajiyada iyo badnaanshaha dadka waxaa ka dhashtay baahi badan oo enerjiga loo qabo. Maalinba maalinta ka sii dambaysa isticmaalka enerjiguna waa uu sii kordhayaa. Muuqaalkanise waxaan ku soo qaadan doonnaa enerjiga nadiifka ah ee maanta dunida oo dhan ay raadinayso iyo noocyada uu u kala baxo, noocyadiisii iyo sida enerjigani aan uga faa'iidaysan karno. Haddaba inta aanan u gudagelin enerjigani alternative-ka, waxaa xusid mudan in aan faahfaahin ka bixino waa maxay energy. Asal ahaan energy qeexis kooban haddii laga bixiyo waxaa la odhan karaa waa awood nidaam uu ku shaqeeyo. Haddii aan tusaale u soo qaadnana, nolosha caadiga ah waxaad ku fakartaa sida in shaah aad samaysatay. Si aad shaah u samaysatana waxaa laazim ah bilowgii in marxalado kala duwan in aad ka gudubto. Si aad shaah u samaysato, ugu horayn waxaa laazima in aad suuqa aado si aad caleenta iyo sokorta u soo iibsato. Si aad u aaddo suuqana waxaa qasab ah in shidaal aad isticmaasho, waa haddii baabuur aad isticmaashay. Haddii aadan baabuur isticmaalinna, tamarta enerjiga ee jirkaagii ayaa isticmaashay. Soo qaadista adeega iyo socodka waxa uu jirkaadii sida baabuurka oo kale u gubayaa carbonhydrate. Haddii borotiinada jirkaadii ay dhammaadaanna, sida baabuur bilaa bensiin ah oo kale, waxa uu qofku dareemaa gaajo. Marka uu qofka raashiin uu cunana, sida baabuur shidaal lagu shubo oo kale, enerji uu qofka uu ku shaqayn karo ayuu jirkiisii helaa. Yacni jirka iyo nolosha caadiga ah ee makiinaduhu waxba kuma kala duwano nidaamkay u shaqeeyaan. Adeegga aad suuqa kala imaadayna marka aad gurigaagii keento, isticmaalka dhuxusha ama gaaskuna waa nooc ka mid ah isticmaalka enerjiga. Sidaasi darteeda waxaa la odhan karaa haddii aad fahamsan tahay enerji waxa uu yahay, ama haddii aadan fahamsanaynba, waxaad isticmaashaa maalin waliba. Sababtoo ah enerjigu waa qayb nolosheenii ka mid ah. Haddaba su'aashu waxa ay tahay enerjigu sidiisii muxuu ka samaysan yahay? Sidoo kalena enerjigu ma la samaysan karaa? Cilmiga fiisigiska marka dib loogu noqdo, gaar ahaan laamaha termodinamiga, waxaa jiro qaanuun si gaar ah termodinamiga uu leeyahay. Qaanuunka koowaad ee termodinamiga waxa uu leeyahay enerji aanan jirin bani'aadamku ma abuuran karo. Enerjigii jirayna bani'aadamku ma uu baabi'in karo. Keliya enerjigu hadba qaab ayaa loo beddeli karaa. Waxaana halkani ka muuqataa in aanay suurtagal ahayn in bani'aadamku enerji inuu samaysto. Bilowgiiba enerjigu ma aha wax fisikaal ahaan bani'aadamku u arki karo, laakiin waa wax shaqadoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii bani'aadamka uu xisaabin karo. Tusaale, haddii aad soo qaadato maanta tooshkuna haddii aad miisaan aad saarto cabirkiisii inta uu la eg yahay, haddii aad cabirto oo meel aad ku qorato, kadibna tooshkani haddii aad shido ilaa saacadaha uu tooshkani uu shidan yahay, sida dhabtaa tooshka, maadaama saacad dhan uu wax iftiiminay, ilays badan ayaa ka baxay. Intaa kadib haddii tooshka cabirka aad dib ugu celiso culayskiisii hore, wax ma iska beddelayaan, maadaama in badan uu wax iftiimiyey, iftiin badanna uu ka baxay. miisaanka caadiga ah ee bani'aadamka uu isticmaalo haddii lagu cabbiro tooshka miisaankiisii waxba iskama beddelaan, laakiin heerka fiisigiska marka loo dego miisaanada xasaasiga ah ee loogu talagalay waxyaabahani, haddii tooshka lagu cabbiro enerji badan oo la dareemi kara ayaa ka baxay. haddaba marka lagu leeyahay enerji micnihiisu waa awood nidaam ama system uu ku shaqeeyo,
waa sida tusaalaha tooshka oo kale. muddadii uu tooshka uu shidnaa tooshka waxa uu gubayay maaddooyinka kala duwan ee bateriga ku dhex jira. markii isticmaalka maaddooyinkani ay ka dhammaadeenna otomaatig tooshka bilaa bateri ayuu noqdaa. haddaba waxyaabahani aan kuu soo sheegay waa waxyaabo iska fudud oo qof waliba u muuqda sidoo kalena uu arki karo. aqoon-yahanada fiisigiska waxay isku dayeen in ay ogaadaan cilmi ahaan enerjigu waxa uu yahay iyo waxa uu ka samaysan yahay iyo in enerjiga laftirkiisii la xisaabiyo. albert einstein formulkiisii caanka ah ee relativity-ga ama nisbiyada waxa uu kagaga hadlayaa enerjiga waxa uu yahay. sababta ugu weyn ee dunida albert einstein aadka loogu buunbuuniyana waa in uu formul u keenay wax nolosha bani'aadamka oo dhan kuseeya, tamartuna cid ka maarantaa noloshu maadaama aysan jirin. fahamka tamartu waa awood aad weyn. waddamada adduunka waxyaabaha lagu kala qiimeeyo sida ay u kala horumareen hadba waxaa la fiiriyaa heerka isticmaalka tamartoodii. waddan weliba waddanka uu ka isticmaal badan yahay enerji waa uu ka horumar badan yahay. waddan dadkiisu dhuxul ay isticmaalaan iyo waddan dadkiisu ay isticmaalaan enerji nadiif ah suurtagal maaha xitaa labadani waddan in tusaale la isku soo qaato. haddaba albert einstein marka uu enerjiga qeexis fiisigisa uu u samaynayay formul ahaan waxa uu dhahay enerjigu waxa uu la mid yahay shay lagu dhuftay xabaaraha ilayska oo laba jibaaran. ama si kale albert einstein waxa uu leeyahay haddii aad rabtaan enerji waddada ugu fudud ee aad ku heli kartaan waa in aad isku dhufataan shay iyo xawaaraha ilayska inta uu la eg yahay iyo wax ka sii laba jibaaran. haddaba broblemku waxa uu yahay sidee ayay suurtagal arrintani baratikaal ahaan ay ku noqon kartaa. tanina waxay inagu qasbaysaa in aan xisaabta u soo degno, waayo shay ma jiro oo xawaaraha ilayska gaari kara iskaba dhaafe xawaaraha ilayska oo laba jibaaran. si kooban albert einstein waxa uu ka wadaa heerkaasi haddii shay uu gaaro shaygaasi waa enerji. walax welibana waa nooc enerjiga ka mid ah. waxay awood u leedahay haddii xawaaraha ilayska ay ku socoto walax walbo in enerji ay isku beddesho. si kooban qeexista albert einstein waxaa laga fahmi karaa in enerjigu uu yahay shay xawaarihiisu aad uu u dheereeyo. haddaba mawduuceeni haddii aan dib ugu soo noqono bani'aadamka nolosha caadiga enerji ahaan maanta waxa uu isticmaalaa dhuxusha, shidaalka, reaktoorada nukliyeerka iyo waxyaabaha la midka ah. isticmaalka tamartanina heer waxa ay gaartay maanta in nolosha caadiga in qalqal ay ku abuurmato. sababtoo ah maanta santaraalada korontada laga dhaliyo waxaa loo isticmaalaa dhuxusha. isticmaalka dhuxushuna waxa ay qasab ka dhigtaa isticmaalka dhuxushuna waxaa qasab ah in geedaha la jaro. geedaha oo la jarana waxaa ka dhalanaya roob la'aan sida abaaro iyo waxyaabaha la midka ah. sidoo kalena nolosha bani'aadamka iyo xayawaanaduna geedaha oo la jaray waxa ay ku yihiin halis aad weyn. isticmaalka dhuxusha ama gubidda dhuxusha waxaa sidoo kale bannaanka u soo baxa qaac carbon dioxide ah. maadaama geedihii la jaray carbon dioxide-kani waxa uu ku qasban yahay in hawadaasana uu ku faafo. tanina waxaa ka dhalanaya kuleelka cimilada adduunka oo sii siyaada. kuleelka cimilada adduunka oo kordhana waxaa ka dhalanaya in qadarka biyaha ee baduhu in ay kordhaan. biyaha badda oo kordhana waxaa ka sii dhalanayo fatahaad iyo waddamo badan ama magaalooyin waaweyn ee maanta horumaray in badda ay ka hoos maraan. waxaase macquula in dadku ay isweydiiyaan kuleelka cimilada adduunka haddii uu kordho sidee ayay baduhu u kordhi karaan iyaga oo loo baahnaa xilliga kuleelka dartiisii in biyaha badda ay nusqaamaan oo umibaxaan. jawaabtu waxa ay ku qarsan tahay antarctica. barafka cirafyada adduunka 14 milyan oo kilomitir iskuweer baraf la eg, yacni nambarkani waa haafka qaaradda afrika. baraf intaa la eg oo dhalaalay ayaa biyaha badda ku darsamaya. maadaama kuleelka cimilada adduunka uu kordhay dhalaalka barafyadanina maanta bani'aadamka cabsi weyn ayuu ka qabaa. tanina waa qayb yar oo ka mid ah natiijada ka dhalan karta kuleelka cimilada adduunka iyo isticmaalka dhuxusha iyo waxyaabaha la midka ah. nolosha caadiga ah ee bani'aadamkuna isticmaalka dhuxusha halisyo kale oo gaar ah ayay ku leeyihiin. waagii hore bani'aadamka waxyaabahani isticmaalkoodii uma uusan arkayn in ay gaari karaan heer hawada oo dhan ay wasaqeeyaan.
dagaalkii labaad ee adduunka kadib bani'aadamku waxa uu arkay waxyeellada weyn ee hubka nukliyeerka uu leeyahay. waddamada qaarkood waxa ay ku fakaraan hubkani halista in dhanka wanaagga sida tamar oo kale in loo adeegsado. sida dhabta ahna aad ayaa looga faa'iiday santaraalada nukliyerka. waddamo badan oo Faransiisku ugu horeeyo ayaa maanta si aada u isticmaala tamarta santaraaladani nukliyerka laga dhaliyo. santaraaladani nukliyerkuna waxa ay leeyihiin halis aad weyn. bilowgii waxa ay ku siinayaan santaraaladani tamar aanan caadi ahayn oo magaalo oo dhan sannad ama wax ka badan ku filnaan karta, iyada oo lacag aad u yar ay ku baxayso. laakiin maalintii wax cillada santaraaladani ay la kulmaan, nolosha deegaankaasi oo dhan sida nukliyar oo kale way soo afjarmi kartaa. maadaama halista santaraaladani ay badan tahay, boqolaal kun oo qofood ama magaalada oo dhan ayaa dhulka ku darsami karta. in re'aktooradani la samaystana doodo iyo cabsi badan ayay dhaliyeen. shilkii re'aktooradani ee Chernobyl ka dhacay ayaa bani'aadamka tusaale ugu filan.